Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Soo dhawaada maanta waxaan ka hadli doonaa muhiimadda ay leedahay maadada iodine iyo haddii ay yaraato waxyaabaha khatarta ay nagu keeni karto. Maadada iodine waxay ka mid tahay waxyaabaha mineralska loo yaqaano jirkeena u baahan yahay laakiin uusan soo saarin. Maadada iodine waxaa laga helaa bannaanka ayaa laga helaa, waxaan ula jeedaa cunnooyinka ayaa laga helaa. Haddii maadada iodine ay yaraato waxaa jirkeena ay ku sababi kartaa khataro badan. Haddii aan ku hormarno hooyada uurka leh waxay ka mid tahay dadka ugu baahida badan maadaama ilmaha caloosheeda ku jira ay u baahan yihiin xaddi badan oo ka mid ah maadada iodine. Maadada iodine waxay ka qayb qaadataa ilmaha caloosha ku jira in ay maskaxdoodu aad u korto. Haddii maadada iodine ay yaraato hooyada uurka leh ku yaraato waxaa dhacayda in ilmahaasi ay ku dhashaan xoogaa maangaabniya. Waxaa kaloo ilmahaasi ay ku dhalan karaan waxa la yiraahdo neonatal hypothyroidism ama in thyroidka shaqadiisa hoos ay u dhacdo maadaama maadadan qaadashadeeda ay muhiim u ahayd hooyada aysanna helin. Halkaas waxaan u gudbaynaa hooyada uurka leh iyo muhiimadda ay u leedahay. Sidoo kale ilmaha yaryar ee xilliga koritaanka ku jira ayagana muhiim ay u tahay oo garashadooda ayay sare u qaadaa maadada iodine. Sidoo kale waxay ka hortagtaa helitaanka maadada iodine inuu yimaado xanuunka loo yaqaano hypothyroidism ama goiter loo yaqaan oo ah in thyroidka uu soo bararo. Dadka caadiga haddii ay maadada iodine aysan qaadan oo ay ku yaraato jirkooda waxaa dhici karta inta badan ay develop gareeyaan ama uu ku yimaado xanuunka loo yaqaano goiter. Xanuunkani oo ah in qanjirka loo yaqaano thyroidka uu waayo maadada iodine oo muhiim u ahayd inuu sameeyo dheecaanada loo yaqaano T3 iyo T4 kuwaas oo qayb weyn ka qaata dheefshiidka, wadnaha, soo saarista ugxaanta iyo shahwada, sidoo kalena garaaca wadnaha qayb weyn ka qaata. Haddii maadadaas ay yaraato iodine ay yaraato waxaa imaan kara waa goiter ama hypothyroidism iyo qofku develop gareyn karaa. Xagee laga heli karaa maadada iodine? Waxaa laga heli karaa cunnooyinka aan banaanka ka qaadano, inta badan malayga, ukunta ayaa la sheegaa, caanaha lo'da oo kale waa la sheegaa, ilmaha oo kale xilliga ay korayaan oo kale laga heli. Sidoo kale waxaa jira wax la yiraahdo iodinated salt ama cusbada caadiga ah ee table salt la yiraahdo in lagu daro maadada iodine. Soomaaliya hadda waxaan filayaa hal company aan arkay soo saaro cusbada kaasi oo ka taxadiray iodine ku daray cusbooyinka soo saaro. Waxaa muhiim ah in qofku uu qaato iodinated salt ama cusbo iodine lagu daray ama uu qaato si supplement ama iyadoo diyaarsan iodine suuqan uu ka raadsado si supermarketyada si aysan u dhicin in jirkiisu uu waayo maadada loo yaqaan iodine. Sidoo kale waa in ilmaha la siiyaa laakiin muhiimaddu waa in jirkaada uu helo laakiin maahan si joogto ah markasta in loo qaato. Haddii iodine jirkaada ay ku baato iyadoo qudheedu khatar ayay keeni kartaa laakiin waa in mararka qaar la qaataa insha Allahu tacaala. Intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkeena waa mahadsantihiin.